maanta baarlamaanka ka dhacay waxaa wax sharci darro ah oo sharciga dastuurka iyo khayr hoosaadka baarlamaanka meel laga aan kaga oolin. wuxuu ahaa sharci aan adduunka meeluu kaga yaalo dee laba maqal, yani xildhibaanaha intay fadhiisteen xildhibaano kale xasaanada ka qaaday iyada oo aanay dee shuruudihii loogu talagalay aanay buuxinin. intaa wixii ka baxsana waa iska wax sharci darro ah oo iyo dee fawdo iyo xaalad abuur ah. markaa bal waxaa la isweydiin karaa maxaa eersateen oo xilka laydinka qaada? waa arrimo siyaasadeed oo fara badan oo isku jira. annaga markii hore xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka mooshinka ka keeneen shirguddoonka. nimankaa shirguddoonkana isku badbaadinayay kuraasidooda, waxaanay rabeen inay xukuumadda iyo dadka xukuumadda yidhaahdo waanu leenahay, ama hantiilayaasha xukuumadda waxay ka gadeen in iyaga lagu socdo, dowladda lagu socdo, howlo noocaasay ka iibiyeen. laakiin mudane markaad tiri waa sharci darro, sida xeerlaalintu sheegtay waxay sheegeen in laydinku soo oogay dembiyo islamarkaana maxkamad laydin wado. sow qodobkaasi ka mid maaha qodobada xildhibaanu ku waayi kara xasaanadiisa oo idinkana taa laydinma haysto? ha qofka hadduu dembiyeed gacanta kula jiro waa shuruud ka mid a. tusaale ahaan 4 shuruudood ayuu qofka xasaanadiisa ku waayi kara sida dastuurka iyo xeer hoosaadka qorayo. number 1 inaan laba kala fadhi kasoo qayb gelin. number 2 inuu geeriyoodo. number 3 inuu iscasilo. number 4 waxa weeye faldembiyeed nabadgelyada dadka iyo qaranka iyo gobolka iyo ummadda uu ku dhexnooliyay oo gacanta kula jira weye. ma aha qof intuu meel iska tago intuu wax soo xarxariiqay yidhahdo hebel halkaasu marayo siduu hadda isagu shaksiya ku soo qora maaha. waa faldembiyeed. annaga faldembiyeed shacabka puntlandna waana yaqaanaa, garowna waa taqaanaa, dadkuna waa yaqaanaa. faldembiyeed kumaanu jirin. shir jaraa'id baanu qabanay, waxaanu dhaliilay shirguddoonka, waxyaaluhu ku qaldan yahay baanu sheegnay, golihii inuu hagi kari waaye baanu sheegnay. intaas hadday faldembiyeed tahay ummadduba waa dembiilayaal. marka waxaad leedahay waxyaalihii laydinku soo eedeeyey ee dastuur jabin ahaa waxba kama jiraan marka hadalka lasoo ururiyo? wax allaale iyo wax ka jiraan ma jiraan. waa wax dad gaari soo qoosqoostay oo siyaasado kale. xildhibaanadana waa xildhibaano dee fikirkoodu dheer yahay oo ay ku jirto arrimo siyaasadeed oo senatarada la dooranaya iyo golaha shacabka imanaya iyo waa arrimo fog oo aragti kale laga leeyahay iyo iyagoo ku badbaadsanayay kursigooda laga keenay mooshin. marka arrimaha fog aragtida kale laga leeyahay aad ku soo celcelisay marka maxay yihiin sida caadiga? arrimaha xilqaadinta looga dalnayay waxa weeye sidaad la socotidba dadku waa beero. waxaa soo socda doorashadii heer federaal ama golo shacab ama senator ha noqoto, iyadoo la doonayo xubno badan oo saami ku lahaa kuraasta senatarada ama golaha shacabka in ay hadda doonayaan inay dad iyaga u adeega oo aan shacabkii aan ka soo dhex bixin oo ama dadkii eelka u ahaa aanay dooranin in iyagu qortaan oo ay shandad ku qaataan oo ay la tagaan meesha la yidhaahdo muqdisho. iyo iyaga oo dad gaara lahaa waxay nagu yihiin trade ama tusaale ahaan arrintii DB Wall ee boosaaso oo kale. dhaqaale xumada hadda dalka ka jiro dhowr goor kala hadalay oo aan ku nidhi laga daayo dadka lacagtan dollarka ee laleeyahay 30% laga qaadi jira cashuurta dekeda boosaaso. marka cidda aad sheegaysay aad leedahay xildhibaanadii bay shandad gaara ku sitaan oo ay rabaan kuwo iyaga u shaqaynaya inay qortaan. waayo ciddaas waa laba gruub weeye, laba gruub oo isku xidhan oo dalkan iyo shirguddoonka oo sheer ku ah inaanay shirguddoonkuna ilaaliyaan danaha kaleeyihiin dalka iyo shirguddoonka iyagana nagu ilaaliya turaasida. waa maslaxad ay kala iibsadeen. marka iminka eed weyn baa laydinku soo eedeeyo inaad dastuurkii jabiseen. maxkamad baa laydin soo taagi doonaa inaydaan dalka ka bixin baa xeerlaalintu sheegtay. diyaar mawtiin inaad maxkamadda arrimaha tagtaan oo iska difaacdaan? waxaa la yidhi waraawo arima raaca markaasuu yidhi maadaba ka daa. haddaan maxkamadda tagno soo waraabihii labaad u tegi mayno. waxay rabaan inay dadkan u sheegaan inay si khaldan u xidhaan xorriyadooda iyo xasaanadooda ay ku takrifalaan. annaguna hadda waxaanu shacabweynaha u sheegaynaa in sharcigii lagu tuntay, gacanta lagu qaatay. annagana hadda wixii ka dambeeya lugahan ku qaadanaa sharciga. cidda markaa sharciga ka weyn hanaga dul tallaabsatee sharcigaasay danta ka yeesha.